dhacdadii labadii bishii Sebtembar lagu rasaasiyay diyaaradii soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Laascaanood afartii qof ee halkaasi ku dhaawacmay muuqaalkii uu soo duubay ganacsade Maxamed Jubutaawi nimanka ku hubaysan qoryaha darandooriga u dhacay ee daba taagan warqadii ka soo baxday hay'adda duulista iyo madaarada Soomaaliland iyo waraysigii uu bixiyay xildhibaan hore Cabdicasiis Aadan Habane dhammaantood waxay ahaayeen dhacdooyin ku saabsan cidda keenaysa qaadka miirowga Soomaaliland gaar ahaan ka soo dejinaysa garoonka diyaaradaha ee magaalada Laascaanood warbixintan ayaynu ku eegaynaa halka ay sartu ka qurunsan tahay iyo sababta khilaafkani uu soo dhamaan waayay halkani waa garoonka diyaaradaha ee magaalada Laascaanood muddo ku siman 3 bilood may soo caga dhigan diyaaradihii iman jiray subax walba oo keeni jiray qaadka miirowga sababtuna waa cali iyo wiil u dhaxaysa ganacsatadii keeni jiray qaadka iyo shakhsiyaad kale oo ka soo muuqday warqad ka soo baxday hay'adda duulista iyo madaarada Soomaaliland warqadan oo soo baxday 12 bishii hore ee Oktoobar ee sanadkan 2022 ayaa lagu xusay in shirkad diyaaradeed oo gaar loo leeyahay la siiyay keenista qaadka miirowga Soomaaliland oo ay mas'uul ka yihiin shakhsiyaadka kale ah xildhibaan hore Cabdicasiis Aadan Habane Siisto Cabdikariin Siciid Aw Cabdi iyo Liibaan Cabdiraxmaan Xuseen Warsame xogta ku qoran warqadan ayaa dharisay muran xoogan oo u dhaxeeya ganacsatadii hore u keeni jiray qaadka miirowga iyo shirkadan gaarka loo leeyahay ee loo xiray inay keento qaadka miirowga Soomaaliland shirkadda Jubutaawi oo uu leeyahay ganacsade Maxamed Jubutaawi iyo shirkadda 571 oo uu leeyahay ganacsade Xaaji Maxamed Ismaaciil Tarabi ayaa hore u keeni jiray qaadka miirowga Soomaaliland labadii bishii Sebtembar ee sanadkan waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Laascaanood lagu rasaasiyay diyaarad sidii qaadka miirowga waxaana halkaasi ku dhaawacmay 4 qof kadib markii uu iska horimaad dhex maray qaar ka mid ah ganacsatadii keeni jiray qaadka miirowga dhacdadan ayaa ka dambeysay ismaandhaaf ku yimid cidda maamulaysa diyaarad sidii qaad oo soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Laascaanood waxa sidoo kale halkaasi ay waxyeello ka soo gaadhay diyaaradda lagu muransanaa ee sidii qaadka 24 bisha November waxaa shir jaraa'id ka soo muuqday ganacsade Maxamed Jubutaawi shirka jaraa'id ee Jubutaawi waxa uu garaaciyay 2 qodob eedeyn uu u jeediyay Cabdicasiis Aadan Habane Siisto oo ku xusan warqadda ka soo baxday hay'adda duulista iyo madaarada Soomaaliland iyo fariin uu u diray madaxweynaha iyo xukuumadda Soomaaliland in la ilaasto Nairobi jooga yiri bari diyaaradda ma soo raraya warqadana xukuumadda u qortay Umar Cabdilaahi markaan kulli waraaqdan maxay tahayna madaxweynaha u taga madaxweynaha oo gaari kari weyn Laascaanood labada shirkooda qaad keeni jiray midna dhul bahantay midna isaaq waxay Siisto in qaad walaa kuma ogeeyne nin mashruucyada iyo injiyada iyo waxa ku mashquulsan baan u yaqaan shirkaasi jaraa'id kadib waxa baaqatay subaxnimadii diyaarad la qorsheynayay inay ka soo degto garoonka diyaaradaha ee magaalada Laascaanood iyadoo sida qaadka miirowga isla markaasina u raran xildhibaan hore Siisto iyo shakhsiyaadka kale ee ku xusan warqadda ka soo baxday hay'adda duulista iyo madaarada Soomaaliland sida uu sheegay ganacsade Maxamed Jubutaawi madaxweynaha waxaan leenahay qaybtii hore dowladda isaaq waa loo qaybsaday sistaxgeema galda haddii lagu bedelayo ninka garxijis madaxweynaha garanaya diyaaradda xukuumadda madaxweynaha waxba kooga uu qaadba uu nicbaa qaadba muu jeclaan system Nairobi jooga barina inuu diyaarad soo ruru doonaya Cabdicasiis Aadan Habane Siisto ayaa waraysi uu bixiyay waxa uu kaga jawaabay eedeynta uu soo jeediyay ganacsade Maxamed Jubutaawi isagoo oo sheegay in aanu ku lug lahayn ka ganacsiga qaadka ninka wax ganacsi oo na dhex maray iyo waxaan isku qabanay aniga toona ma jiro haddii laga tagi waayo diyaaradaha jaadka ee diyaaradaha Kenya ka soo kaca 4 diyaaradood oo kamid ah ayaan anigu permission u haystaa oo wakiil u ahay oo agent u ahay oo aan ahay qofka rangareynaya diyaaradaha idiga kireysatana waan ka kireeyaa xildhibaan hore Cabdicasiis Siisto ayaa sharaxaya waxa ay tahay shirkadda ay xukuumadda Soomaaliland kootada ugu xidhay keenista qaadka miirowga Soomaaliland ninka Liibaan Euro layda iyo anigu diyaaradahaasaan ka wakiilnay diyaaradaha 4 ana waxaan permission uga qaadanay in aviationka Soomaaliland waana wax caadi ah in permission aviationku cidaas uga shiireed u wakiiltahay kusi wax dhibaato oo jiraan ma jiro malaha dadka looga dhigayo arrinta jaadka iyo miirowga waxa ku qoran diyaaradaha jaadka miirowga soo qaada anaga ka wakiilan miirowga inuu ka shaqeeyo doonayaan waa inuu naga kireystaa diyaaradda oo anagu diyaaradda aan u soo rarnaa talabaad waxa meesha taala anagu qaadlamani meeyaan u qaadno anu qaad kama shaqeeyo qaadka Laascaanood kama shaqeeyo ganacsade Maxamed Jubutaawi oo ka jawaabay hadalka xildhibaan hore Cabdicasiis Siisto
ayaa sheegay in aqoon shakhsi ah ay isu leeyihiin dhowr jeerna ay kulmeen iyagoo ka wada hadlay ganacsiga qaadka. war miyaadan ahayn ninkii laascaanoodii ugu yimid war miyaadan ahayn ninkii gurigayga igula shareeyey war raggii markhaatiyaasha hargeyso joogaan 1,000 qof baan la joogay labadeennoo keliya meel islamaanna geline 1,000 qof baa inala joogay war waxaad igala hadlaysay qaad war waxaad rabtaa inaad qaad ka shaqayso warqadda aad wasaaradda duulistii hawada ka soo qaadatay ma ingiliishkaadan aqoon miyaadan akhriyin bal horta waxa kuugu qoran diyaaradii kuugu qoran 4 diyaaradood kuugu qoran yihiin iyo in qaadka mirooga kuugu qoran horta kale ee xataa haddii ingiliishka aqoon iyo qof ii akhridhe sistoy haddaa been sheegaysid been run yeeshe warqadda aad soo goosatay sista 4 diyaaradood buu leeyahay uguma qorra ee sista unbaa qaadka keeni karaa kuugu qoran. marka aynu ka nimaadno hadalka labada mas'uul waxa isweydiin mudan maxaa ku qoran warqadda ka soo baxday hay'adda duulista iyo madaarada Somaliland. warqadda ayaa lagu yiri sidan: ma jirto shirkad kale ama koox kale oo loo ogol yahay inay ka soo dejiso miirowga madaarada Somaliland marka laga reebo shirkadaha fasaxa ka hela shirkadda Urban Company. waxa kale oo si sharaf leh loo ogeysiinayaa in hay'adda duulista iyo madaarada Somaliland ay siisay shirkadda Urban in ay kaliya heshiis kala gasho shirkadaha kale ee diyaaradaha ee fadhigoodu yahay dalka Kenya arrimaha la xiriira soo dejinta miirowga. nuxurka labadan qodob ee aynu xusnay waxa uu waafaqayaa sida uu ku doodayo ganacsade Jabuutaawi oo ah in laga xidhay dhammaan shirkadihii kale ee ka ganacsanayay qaadka miirowga marka laga reebo cidda ay fasaxa siisay shirkadda Urban, taasi oo la micno ah in ganacsade Maxamed Jabuutaawi iyo ganacsatadii kale ee diyaaradaha ka soo kiraysanayay waddanka Kenya isla markaasina kaga keenayay qaadka miirowga aanay ka keeni karin ilaa ay fasax ka helaan shirkaddan Urban. waraysiga uu bixiyey xildhibaan Cabdicasiis Siiso waxa uu isagu dhankiisa ku daadifeeyey nuxurka labadan qodob waxaana uu sheegay in aanay jirin koota loogu xidhay ka ganacsiga qaadka isla markaasina aanay shaqo ku lahayn. si kastaba haatee khilaafkan ayaa ah mid aan weli xal loo helin. hay'adda duulista iyo madaarada Somaliland oo warqaddani ay ka soo baxday iyadoo uu ku saxeexan yahay maareeyaha guud ee hay'addaasi ayaan weli ka hadal warqadda ka soo baxday xafiiskooda. wasaaradda ganacsiga oo xukuumadda u xil saaran ganacsiga oo uu ku jiro jaadka miirowgu ayaan iyaduna weli wax wara ka soo saarin khilaafka u dhexeeya ganacsatadii hore u keeni jirtay qaadka miirowga iyo shirkadda cusub ee xukuumaddu kootada ugu xidhay in qaadka ay ka keento dalka Kenya. golaha wakiilada Somaliland gaar ahaan guddiga dhaqaalaha ee arrintani u qaabilsan golaha ayaan dhankooda iyaguna weli wax tallaabo qaadin isla markaasina u yeedhin mas'uuliyiinta u xil saaran arrintani si ay su'aalo uga weydiiyaan. ganacsatada cabashada ka muujiyay warqaddan ayaa sidoo kale ku doodaya in warqaddani ay jabisay qodobo dastuuri ah oo uu ka mid yahay qodobka 11aad ee dhaqaalaha dalka gaar ahaan farqadiisa labaad oo u dhigan sidan: iyadoo la dhowrayo inaan habka dhaqaale noqonin mid horseeda in barwaaqadu ku koobnaato ama ku ururto koox ama dad tiro yar si aanay u dhalan dabaqado dhaqaale oo ka kooban kuwa waxaysta iyo kuwa aan waxaysan, si aanay u ballaaran faqriga dhaqaale ee u dhexeeya reer miyiga iyo reer magaalka. waxaa dowladda jamhuuriyadda Somaliland xaqiijinaysaa in adeegyada bulshada iyo fursadaha dhaqaale si cadaalad iyo sinaan ah loo qaybiyo.